Ismaaciil Ibraahin Axmed bal waxaad nooga warantaa taariikhdaadii gaar ahaan sooyaalkaagii shaqo iyo waxbarasho. horta waxaan kusoo koray magaalada Hargeysa oo aan iskuulada ka galay. waxaan dugsigii hoose ka galay iskuul la oran jiray European School oo Hargeysa ku yaala. dugsigii dhaxana badhna waxaan ku qaatay Hargeysa, badhna school boarding school ahaa oo ku yaalay Cadaadley. intii aan yaraayan Hargeysa ku korayay fasax kasta waxaan tegi jiray miyiga oo runtii ahaa miyigo isaguna ahaa iskuul aan ka bartay wax badan oo noloshayda anfacay. markaan miyiga tagana iskamaan dhigi jirin nin magaalo ka yimid oo dalxiis meesha u tegay hawlaha miyiga yaala qaybteeda ka qaadan jiray. dugsigii dhexe markaan ka baxayna waxaan galay dugsi sare oo afkooda ku yaalay oo beeraha ahaa oo 3 sano oo kaliya ahaa. waxaan doonayay inaan hore shaqo u bilaabo, maan gelin jaamacadihii bariga xamar ku yaalay. shaqadii ugu horeysayna waxaan ka bilaabay mashruuc xaruntiisu ahayd Hargeysa oo la oran jiray mashruuca horumarinta beeraha. shaqadii ugu horeeyay qabtayna waxay ahayd waxaan noqday surveyor oo waxaan ka shaqayn jiray moosas iyo bixirino loo sameyn jiray beeraleyda Gabiley iyo Boorama. waa hagaag bal waxaad nooga warantaa dhoofkaagii iyo caqabadihii aad kala kulantay. markii aan muddo ka shaqaynayay mashruucaasi ayaa niman Ingiriis oo wada shaqayn jiray iga caawiyeen inaan helo scholarship aan jaamacad ku galo dalka Ingiriiska. markii aan fiisadii soo qaatay ee aan u diyaar garoobayay inaan dhoofo ayaa dagaalkii Hargeysa igu dhacay oo burburkii Hargeysa ka dhacay goobjoog baan ka ahaa. markaan muddo ku jirnay Hargeysana waxaan aniga iyo qolo kale wada shaqaynaynay baa tagnay magaalada Boorama. markaan Boorama gaadhnayna aniga iyo ninka ruux xisaabiyan oo ahaa ayaa markiiba looga yeedhay nabad sugidii Boorama ku taalay sina loogu daro dadkii markaa reer ahaan lagu qabanayay. waxaa markaa si wanaag warqad damaanada noo soo helay nin Cabdi Xashil oran jiro oo gobolka deegaanka Itoobiya ka soo jeeday oo garanayay nimankii saraakiisha ahaa ee ciidanka haystay. marka sidaasaanu muddo Cabdi Xaashi iyo xaaskiisa wada shaqayn jiray kaltuun la yiraahdo Boorama ku nool aan muddo ula joognay. markaan xoogay joognay ayaa ninkii xisaabiyaha maalin helay reer safara oo Itoobiya tagayay. markuu baxay baana la igu yiri kor hadii ninkii aad ku wada qoraydeen warqadda damaanada uu baxay waa inaad adna magaalada si degdeg uga baxdaa. dabadeedna niman asxaab ahayn oo mashruuca ka wada shaqayn jiray ayaa ii soo helay nin la yiraahdo Geesh oo reer Boorama ahaa oo lahaa isku rogo milixda gurta oo Djibouti tagi jirtay. tiiba markaa aroor markii la eedaamay aan raacay waxaan iska dhigay Krishbay wax ka dambaa fuulay baasaboorkiina Geesh baa meel igu qariyay. sidaasaanu markaa ku tagnay markii hore Saylac dabadeedna Djibouti. marka muddadii markii dagaal ku dhacay iyo waqtigan inta dhexda ku sii jiray muddo ka soo wareegtay. marka Djibouti tagay waxaan ogaaday dadkii markay istirsadeen aniga wax lagu tiriyay dadkii aan dagaal ka soo bixin. aniga lafteedii waxaan ogaaday reerkaygii wixii dagaal ka baxay iyo wixii dhacay. markaan xoogay Djibouti joogayna waxaan baasaboorkii baa ii badbaaday oo fiisada lahaayo sidaasaan markaa Ingiriiskii ku galay. markii aan Ingiriiska tagay markiiba waxaan ogaaday in scholarshipka laga kasal gareeyay. markaasaan qolada World Bank lacagta bixinaysay iyo nimankaan wada shaqayn jiray la xiriiray dacwad qortay anoo ku dooday oo la warday scholarshipka wasta kumaan helin waxaan shaqaystay buu ahaa iska xaasidnimana runtii waa laga kasal gareynaya lacagtu iska diyaar bay ahayd. adigu markaan muddo wixii daba socday waxaa lagula taliyay inaan u tago safiirkii dowladda Soomaaliya markaa u fadhiyay London. ninkaasoo runtii la igu yiri waxbarashada uu qiimeeya oo la saarud ka soo jeeda oo ahaa dadkii waxbarashada Ingiriiska soo gaadhay ayaan maalin u tagay. sababta dadku qaarkood igu yiraahdeen ha u tagin waxay ahayd waxaan ka qayb qaatay banaanbaxyadii lagu hor sameyn jiray safaaradda
marka waxa caadiyan safaaraddu ay samayn jirtay dadka meesha ku bannaan baxa sawirraa laga qaadi jiray, video baa laga duubi jiray. marka beriga waxaa la odhan jiray safaaradaha Soomaalidu dadka wixii ay mucaaradka la xiriirinayaan intoo sanduuq lagu rido ayaa waxba laga dejin jiray. sidee ugu yidhahdeen war maxaad ka doonaysaa safaaradda adigoo ka soo baxay dagaalkii iyo adigu waan safiirka waan u tegay waan ku dhiiriday niman baan u sheegay kuwan haddii aan hore uga soo bixi waayo bal booliiska u sheega. marka ninkii u tegey safiirka ahaa uga warramay scholarshipkan inuu ahaa mid aan soo shaqaystay, wuxuu ii sheegay inuu iga caawinayo in bahalkii dib laygu soo fasaxo. markaasuu igu yidhi waxaad yeeshaa waxbarashada galo markaad dhamaysto waxbarashada haddaad doonayso SNMta ku biir. isagu ilaa markaa wuxuu haystay inaan SNMta ka tirsanaa laakiinse kamaan tirsanayn dee sawirkayga ku arkay banaanbixii aan ka qayb qaatay. horta sidaasaan markaa jaamacaddii ku galay oo lacagtii laygu soo diray waxaa ninkii maarayaha noo ahaa iyo nin hindi oo xisaabiya ayaa lacagtii bariga xaday. intii loo soo diray laakiinse waxay igu filaatay inaan fiilis ka bixiyo iyo wuxuu uga yaro aan reerkii wixii xiriyo qaxootiga joogay aan u diray. si aan markaa u helo lacagaan ku noolaado waxaan bilaabay inaan qabto shaqooyin iska temporary oo anigoo waxbarashadii full time-ka ku jira. shaqooyinka runtii aan iska muruqmaalka ahaa ka soo shaqeeyey waxaa ka mid ahaa inaan guro midhaha bahalkan la yidhaahdo strawberry-ga iyo tamaandhado kale ah. maalintii ugu horreysay shaqadaa qabto waxay noqotay shaqadii igu adkeyd in malaha soo qabto, waayo maalintii oo dhan iyadoo roob da-ayo ayaad marna gurguranaysaa mar aad fooraraysaa. markaase waxaa lacag lanagu siin jiray inta trayan maalintii buuxino. maalintaa markii aan kusoo noqday meeshii aan deganaa ayaan sariirtaydii fadhiistay anigoo aan iska saarin kabihii dhoobada lahaa wax jirkeygu dhaminaa strawberry urayo ayaan anoon kabihii iska saarin gamay. beryaha aan howlaha ka shaqayn jiray ayaan markii ugu horreeyey bilaabay inaan xawaalad ingiriiska ka sameeyo. marka xawaaladdu waxay lacag u diri jirtay magaalada Dirdhaba oo ahayd meesha qureed ee ugu dhowaa dadkii xiriyaha qaxootiga ku jiray inay lacag ka soo qaataan. marka waxaa wakiil ii ahaa niman ganacsi ku haystay Dirdhabe. ana London baan kasoo diri jiray lacagaha. muddo kadibna markii lasoo noqday ayay nimankii bilaabeen ganacsi kale oo xawaaladii markaa saasaan beriga ku joojinay 1990 iyagoo ay moodayeen in wadanka dadku ay dib ugu soo noqonayaan oo aan lacag bala soo diri doonin. markii aan ingiriiska tegey waxbarashada aan bilaabay waxay ahayd postgraduate diploma oo maan samaynin first degree ama digriga koowaad maan samaynin. laakiinse shuruuddu waxay ahayd haddii aan diblomada marks fiican ama darajo fiican keeno waxaa la ogolaanayaan masters toos u galo. marka runtiina si wanaag 2 sano gudahood ayaan masters ku qaatay. sanadkii saddexaadna waxaan bilaabay PhD. marka waxaan berigii PhD marka waxaan bilaabay markii dhulka lagu soo noqday. marka waxaan goostay inaan PhD ku sameeyo Somaliland oo aan daraasad ku sameeyo bal dadku sidee uga soo kabteen burburkii. marka waxaan Hargeysa ku soo noqday anigoo daraasadda PhD-da sawada 1992 oo weli Hargeysa duusanayd ammaankeeda runtii aan u fiicnayn. markaa daraasadii dhameeyey ayaan haddana dib ugu noqday Ingiriiskii. fursaddii labaad ayaan Hargeysa ugu soo noqdayna waxay ahayd 97 haddii shir waxaan jeclaan jiray inaan Hargeysa ku noolaado oo meel kastoo tegay runtii Hargeysa ka jeclaa. marka beriga waxaan ku biiray daraasad ay waday jaamacadda Ingiriiska ku taalla oo geeska Afrika ka shaqeynaysay. berigaasi markaan nooga soo baxday qiyaas ah in Somaliland oo kaliya loo soo diri jiray lacag $500 milyan oo dollar ah. waayo hay-adaha UN-ta oo iyagu ku doodi jiray inay dadkeena masruufaan beriga waxay warbixinada ku qoran jireen in lacaga aan ka badnayn $10 bilyan oo dollar sanadkii loo soo diray Somaliland. marka laakiinse lacagaha $500 milyan ee Somaliland loo soo diri jiray waxaa inta badan dadku ama gacanta ku soo qaadan jireen ama waxyaalo kale ku soo iibsan jireen. xawaaladaha waxaan ka badnayn 100 ama 200 milyan baa uun soo bari jiray berigaasi. waa hagaag bal waxaad nooga warantaa hay-adaha iyo khibradda aad kala kulantay. hay-adaha
dhulalka soomaalida ka shaqeeya had iyo jeer marka dhibaato timaado iyagu fursad bay u arkaan ay lacag ku helaan. Marka berigii markii la xidhay albarakaat ayay mar qura sheekadoodii bedeleen ahayd annagaa soomaalida masruufna oo ay lahaayeen lacagaha xawaaladaha waa la buunbuuniya wax weyn maaha. Markaasay waxay markiiba soo saareen warbixino ay ku doodayaan ay leeyihiin 1 bilyan oo dollar lacaga gaaraya xawaaladaha soo marayay. waana been bay ahayd oo waayo xataa anaga daraasadeedii waxa ka soo baxday marka dhulalka soomaalida oo dhan la isku daro xawaaladu waxay dirayeen 100 ama 200 milyan ka badnaan. marka iyaga de maanta dantoodii baa gashay inay buunbuuniyaan oo xataa ka badiyaan tii aanu sheegaynay inay lacagihii la soo dirayay. markaas waxay ku doodeen haddii aan lacag loogu dhiibin in xawaaladaha inta kalena la xirayo macaluul dhici doonto. sidiiba markaa hay-addan UNDP ay ku bilowday mashruuc ay lahaayeen xawaalada uu ka caawinaya sidii ay shuruucda beryaha lasoo rogaayo u dabaqi lahaayeen. marka bacdama aanana muddo xawaaladaha daraasad kusoo sameeyey xawaalad hore aan sameeyey odayaasha xawaaladahana inta badan xiriir wanaagsan aanu lahayn iga dalbaday inaan consultancy mar u sameeyo. sidaasaan markii dambena shaqaalihii UN-ta uga mid noqday. marka mashruuca xaruntiisu Nairobi bay ahayd, ingiriiska ka tegay, Nairobi baan tegey. markii aan shaqada bilaabayba waxaan arkay musuqmaasuq baahsan oo runtii si bareera loogu boobayo lacagtii mashruucaasi loogu deeqay. marka runtii mar waxaan goostay inaan London ba iska noqdo, waxaan ku meeshan iskaga tag. haddana markaan sii rogrogay waxay ila noqotay inaan bal isku dayo in qoladii New York joogtay aan gaarsiiyo. marka markii ugu horeysay maalin axada ayaan meel internet cafe oo Nairobi ku taala tagay anigoo iska dhigay qof kale ayaan markaa waxyaalihii aan arkay berigaasi oo de muujinayay musuqmaasuq baahsan aan u diray New York. dabadeedna dhowr cisho ka bacdiba 2 nin oo ka socday qaybta waxbaarista ayaa degdeg loo soo diray oo runtii de way arkeen waxa aan u diray wax de warwar ku dhaliyay buu noqday. laakiinse nimanka waxaa loo soo diray may ahan inay baaraan musuqa inay mashruuca ka caawiyaan in wixii la dambabaso oo wixii documents caddeynaya musuqa la gubo. saasay u yimaadeen Nairobi. dabadeed markaa aniga igamay shakisanayn in ingiriiska yimid oo lacagta yare fiican u qaadanayo mabsuud ku abay moodayeen. dabadeed emailkii aan diray laftiisii bay ila sheer gareeyeen oo ay yidhaahdeen bal naga caawi sidii qofkan loo heli lahaa. markaasaan ku aniga laga yaaba inaan gartay bal isoo dira. aniguna waan bedelay saan ku qoro oo waxaan iska dhigay qof kale oo aan Nairobi joogin sidaan wuxu dhigay. waxaa kaloo markaa igu yidhaahdeen bal wax alla wixii macluumaad ee documents ee mashruucu leeyahayna soo qaad nimankan baa eegaye. waxaanay u doonayeen markaa in waxaa gubaan meeshan xafiiska Nairobi UNDP-da wiigiiba mar baa dab la gelin jiray waxa documentska oo dabadeed markaasaan damcay inaan fursadda ka faa'iidaysto oo waxaan u tegay qaybtii IT-ga UNDP oon ku iri documents bay auditors ku yidhaahdeen bard markaa bal waxaad siisaan access ama qaab aan u helo documentska meesha ku jira computerada systemka. markaa network bay lahaayeenoo dabeedna qoladii qalad bay sameeyeen oo anigu isma lahayn ba ilaa xadkaasa waxaa lagu fasaxayaa waxay siiyeen admin rights ama wax ii suuro geliyey documentsko kaliya maaha inaan xataa emailada isku dirayeen oo dhan ee mashruuca ku saabsanaa aan helo. tii markaan helay ayaan dabadeedna wixii ay emailada isku dirayeen oo de kumanaan noqonaysa ilaa maalintii mashruuca la bilaabay ilaa waqtigaan waan ku beeri doono oo qaarkood runtii si bareer looga hadlaya sida mashruuca loo hadayo aan fursad u helay. wixii baan markaa soo qaatay oon muddo ka shaqaynayay. adigu muddo 8 bilooda ayaan galabtii markan Friday ku jiray tago aan qorayay dossier waxaa de ay cadeymihii ku jiraan emailada
marka berigaa markii hore waxaan doonayay reerkayguna ay igu soo biiro oo Nairobi imaado laakiin markan waxaan arkay waxaan soo kale meesha ma la sii joogi karo meeside London baan u daayayo ana berigaa waxaan galay meel u dhoweyd meel la yiraahdo Sarit Center oo Nairobi ku taala oo lahayd ammaankeedu fiicnaa waa in Nairobi haddaad waxaa gasho waa in haddaad isu ilaalisaa dabadeed beryahaasa markaa mar anigana la ii bedelay Dubai oo la yiri qolada xawaaladaha halkaas ay xarun ku leeyihiin u dhawow ayaan maalintii aan ka dhoofiyay Nairobi saacad ka hor intaan airport-ka tagin baan markaa doosiyerkiisa oo aan soo daabacay iyo isagoo email-aba u gudbiyay anoo raacaya sidii procedure-ku ahaa marka waxaan 8 bilood ka soo shaqeynayo cadeymihii u dhan yihiin waxa emailada aan helay ayaan leeyahay waa kuwan wixii dadkii waxaday sidan bareerka wuxuu gurtay dabeedna markaan gacan tagay Dubai waxay ka daba yimid mar dambe markii wixii ay kala soo tashadeen New York iyo qolooyinkii kale auditorska ahaa ee New York ba nin madaxno ahaan jiray marka ninkii uu ila soo fadhiistay maalin markaan Dubai tagay kama baqanayo si wanaagsan baan wada hadlayn marka ninkii intaan hotel fadhiisanay ayuu ii sheekay ugu yiri waan wixii aad soo dirtay waan arkay waan akhriyay wuxuu yiri nin CV wanaagsan leh oo mustaqbal leh baa tahay meeshan waxa la yiraahdaa UN-ta qaabkan aad moodayso uma shaqeyno waxaan la noqo oo iska bax haddii aad sidaa yeeli weydana mashruucna waa la xirayaa adna shaqadaada waad ku waayeysaa weliba heri maysid reference aad dib meel kale uga shaqeyso xawaalad dambe dib uga shaqeyn maysid bil haddaad waxaa sii wado anna waxaan ku yidhi haddaad baari weydaan ood waxaa cid weliba ka madax bannaan nimankii berigii yimid aad u diri weydaan sida dawgu yahay waxaan u gudbin doonaa administratorka UNDP haddii isagu waxba ka qaban waayana waxaa ii fasaxa oo procedure-keenu sheegaya inaan media la share gareeyo sidii baan ku kala tagnay ninkii marka mashruucii markiiba waa la xidhay magara lacagtiina waa la qaybsaday badna waxaa loo soo diray urur yaro xawaalado markaa ay sameeyeen oo odayaashii xawaaladaha iska aaminsiinayeen anna sidaasaan marka waa berigii financial crisis ku jiray oo marka weligay waa markii ugu horreysay aan camal aani ku dhacdo ku shaqo beelay oo shaqadeeda saa ku joogsatay waa hagaag bal waxaad iga warantaa fikirka well remit goormuu kugu dhashay markii shaqadaydii la joojiyey ayaan dabadeedna ku noqday London markaasaan doosiyerkii ama reportkii hore aan diray ku daray in aniga shaqadaydii aan ku waayay wixii hore qoray dabadeed oo welibana intaasoo nimanka kumay joogin xataa meelihii kale islahaaya uun ka shaqayn karaya warqada loo qoray waxay sameeyeen xataa xawaaladaha ayaa shir loogu qabtay Nairobi oo lagu yiri ninkaasi waa nin dhibaato wada ee telefoonada xataa ka qaadina sidii baan markaa warbixintii oo sii faahfaahiyay wixii kale intii aan joogay dabadeed dhacay iyo weliba xataa lacagihii markaa wixii ka harsanaa wixii lagu qabtay iyo sidii intii kalena loo sii musuqay aan ku sii daray baan markaa u diray ninkii markaa madaxda ka ahaa UNDP ee New York fadhiya oo ay procedure-keega saa sheegayay qoladii bahalkii halkii waxba kamay soo qaadin dabadeedna anigoo raacaya procedure-kii UNDP-ga ee ahaa haddii ninka administrator waxba ka qaban waayo waxaan fasax u haystay inaan media la share gareeyo markaasaan media la share gareeyay oo aan Reuters iyo waxaa doosiyerkii u diray dabeedna markii meediyihii qoreen weliba gabadh Congress-ka Mareykanka ka mid ihii tiri lacagaha laga joojiyay UNDP wixii dibadda soo baxeen ayay yidhaahdeen iminkaanu baaraynaa dabadeedna baaristii mudday qaadatay adigu sanad guuradii afraad maalintii aan internet cafe-ga Nairobi tegay ayaan kiiskii ka helay qoladii UNDP oo dabadeedna markaa ay siiyeen lacag magdhowa oo ahayd sanad mushaharkii iyo lacago kale oo ay berigii hore iga joojiyeen marka intaasaan noqotay lacagtii ugu horreysay aan ku maalgeliyo weer remid oo markaa aan bilaabay waaba isku soo beegmeen sidaasay markaa aan shaqadii weer remid aan ugu wareegay oo aan weliba uga shaqeeyay weer remid waayo kole daana bacdama aan reference helaynin
dariiq kaloo ii banaanaaba muu jirin oo waxay noqotay inaan beryihii hore weliba toddobaadkii 8 saacadood baan ka shaqayn jiray Wellremit. Saasay markaa runtii shirkadda asaaskeedii ahayd. Shirkadda Wellremit horta saasaan ku aasaasay ilaa imika waxay heshay maalgashi gaadhaya ilaa 700 milyan. Marka dee anigu aasaasihii shirkaddan ahaa, imikana waxaan ahay dadka de shareska kule kuwa ugu badan. Laakiin shirkaddu runtii waxay noqotay shirkad weyn oo dad badani lacag gashadeen oo ay la leeyihiin dadkii berigii hore igala shaqayn jiray oo shareska bar ku leh, kuwii maalgashiga gashaday. Marka lacagtan imika aan ugu deeqay inaan gelinayo 500 milyan ee aan gelinayo foundationkana waa wixii anigu aan ku lahaa Wellremit oo keliya ee ma aha wax Wellremit shaqo ku leedahay. waa hagaag sooyaalkaaga nololeed maxay dhalinyaradu ka faa'iidi karaan? waxayna tahay waxaa laga faa'iidayaa 2 arrimood oo aan kula talinayo dhalinyarada. waa ta koowaade waxaa waqtiga adaga ku soo mara waxaad kaga bixi karaysaa waxna ka baran karaysaa adiga oo ku talagala oo qorshaysta inaad shaqo kasta oo adagoo kula soo gudboonaato qabta. berigaan Ingiriiska tegey shaqo muruqmaal oo adag ayaan qabtay oo aan ka doorbiday inaan cayr qaato. maanta dhalinyarada jaamacadaha iskuulka ka baxa shaqooyinka caynkaas oo kale waxay ka doorbidaan oo ay ka doortaan shaxaad camal la'aan iyo inay cid dulsaar ku ahaadaan. waxaan leeyahay cisigii sharafta waxay ku jirtaa inaad isku tashato oo aad markay ka fursan weydo muruqaaga maasho. xataa caafimaadkaagaa ku jira inaad maskaxda iyo muruqaba ka shaqaysiiso. ta labaad waxaan leeyahay iska ilaaliya waxyaalaha musuqa iyo xaaraanta ah oo u dirira xaqa. markaan UNta tegey waan arkayay inaan shaqadeeda ku waayo haddii aan ka hor imaado musuqii. waxaa iga fududaa inaan ana qaybteeda qaato. laakiinse inaan si xalaala u shaqaysto ayaan doortay oo aan caruurteyda siinin xoolo xaaraana. imika beryahan dambe waxaad moodaa dadku qaar inay xaaraantii xalaashii isaga ekaadeen oo ay musuqii wax caadi u arkaan. waxaan leeyahay waxaan dhaqan umaynaan lahaan jirin ee aynu ku soo noqonno wixii dhaqankeena iyo diinteenu ina faraysay oo yaan laga fikirin oo keliya maxaan maanta qaataa. ugu dambeyn waxaad xog kooban naga siisaa Sahmiye Foundation. Sahmiye Foundation waxaanu aasaasnay inuu ka shaqeeyo mashaariic horumarineed oo aanu doonayno in laga dhaqan geliyo Somaliland. horta markii ugu horeysay ma ahayn Somaliland wax ka sameeya anigu berigii horeba waxaan hayuun baan badnayn waan qorshahayga ku jirto waana samayn jiray inaan waddanka dib u geliyo. imika waxaanu ku tala jirnaa inaanu gelino ku maalgelino foundationka lacag ilaa 500 milyan oo dollar 10 sano ee soo socda oo aanu gelinayno mashaariic la xiriidha waxbarashada infrastructure-ka oo ay ugu horeeyaan wadooyin aan doonayn Hargeysa laga sameeyo halabuur ganacsi oo dhalinyarada shaqo loogu abuurayo iyo caafimaadka. waxyaalaha imika noo qabsoomay waxaa ka mid ah daaris oo ah barnaamij waxbarasho oo aan ugu talagalay inuu literacyga ama wax akhriska iyo qoraalka kor soo qaado oo dadkii aan fursad u helin inay iskuul galaan ay wax ka bartaan. marka imika abkii ayaa noo diyaara oo dadkii la gaadhsiinaya laakiin isagoon sii ballaarinaynayo dadka waliba miyiga jooga ee iyagoo aan fursad u helayn inay bahalkaa helaan waxaanu doonayaa inaan u raadino qaab af Soomaaliga loogu dhigayo. waxaa kaloo ka mid ahaa berigii dee covidkii yimid waanu ka qayb qaadanay oo qalabkii shaybaarka lagu baadhiyay covidka iyo face maskskii ayaan u keenay Somaliland. runtii fikradda Sahmiye Foundation waxay ku dhalatay markaan arkay dhibaatada ay hay-adahan gargaarku sheegtaa ay waddanka ku hayaan oo aan ahayn wax ummadda wax u taraya ee intooda badan yihiin un qaar dhibaatada runtii Soomaalida haysata ee ka shaqeynaya inay sii socoto waa iyaga dambe ugu jirto oo lacagta ay kulba
helayaan baa sii badanaysa. Maanta waxay soomaalida u sheegtaan inay 3 bilyan iyo badh deeqa la siiyo, dabcan khaasatan taasoo inta badan Soomaaliya la siiyo, laakiinse waxaas waa waxuun dhibaato ummadda u leh, waxba uma soo kordhiya.